بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحافة شرفت له وايد السلام يا ومدى رير سومالي لان نبض جعلنا وان سلام يا حركة حقها حنانة حولها حسبك ودني لبا حركة ورياش اللي قحري قبيلة بربراء صدح حكومة السيلانيو وعقد صارتي نبيه أما وضدي كليجي تلسنمو هذا نقول إيوه لما أفر أبغى قضب كفراد بين أبورك هجان كحزب كلمية تا هدي أنا مركها كوبلابو هجان كحزب كلمية ووجوه الرئي قدومي هدو واحد بدن كلام الصعدة قدوميها كلمية arrimaha sharci dejinta iyo halka ay wax marayaan wuxuu ku tiraabay gudoomiyuhu in gudoomiyaha golaha wakiilada mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi uu saxay khalad ku jiray xeerkii uu codeeyay golaha wakiiladu 30kii bishii sagaalaad 2014 gudoomiyaha golaha wakiiladu uma xil saarna qorida iyo isku dubaridida hadalka xildhibaanadu ku hadlaan iyo doodooda waxa jira wax la yiraahdo hadal qoraal minutes taking department sidaa darteed gudoomiyaha waxa la siiyay nuqul gudoomiye ku-xigeenka koobaadna nuqul baa la siiyay gudoomiye ku-xigeenka saddexaadna nuqul baa la siiyay xildhibaanada nuxurkii baa loo akhriyay qodobadii wax laga bedelay baa loo sheegay xeerarka fara badan ee la isla akhriyay baa loo sheegay xildhibaanaduna unanimously ama aqlabiyad ay ugu codeeyeen xeer qura loo codeeyay hal koobi oo qura ama nuqul qura ayaa jira oo 46 qodob ayaa golaha wakiiladu u codeeyay 30kii bishii sagaalaad kuna ansixiyay aqlabiyad 64 mudana 64 mudana nuqulka oo aan halkan ku hayo oo aan tusi doono mid aan ahayn cidda haysa ha keento nuqulka 64ka xildhibaan saddexda shirgudoona ay koobiga ka hayaan nuqul aan ahayn ma jiro warqad yar oo waxaan arkay qodob lagu qorqoro meelaha la carcariyo suuq laga soo kitaabacay waxba kama jiraan waxda hadal qoraalka haysa hadaa doontaan waxda hadal qoraalka u tagi kartaan hogaanka xisbiga kulmiye hadii ha keeneen haday hayaan nuqul labaad hadii kale waxaan leeyahay waxbuu saxay iyo waxbuu sameeyay waxba kama jiraan gudoomiye waxba muusixin qodobka 26aad 25aad iyo 7aad oo uu ku soo qoray gudoomiyaha guurtidu uu ku soo qoray warqadiisii uu soo qoray gudoomiyaha 2 usbuuc kadib markii aanu ansixinay xeerka taa ayuunbu gudoomiyuhu qodobadu waxay ka hadlayeen uu iftiimiyay oo uu yiri waxa haba yaraatee qodobada loo codeeyay waa kuwa waxa la wax kale oo anigu ka bedelay ma jirto nuqulkiina waa ka adigay ku taala habraaca iyo procedure-ka inaga dhaxeeya soomar ya ama wax ku dar ama wax ka bedel adigay ku taala laakiin hadalkan iyo propagandada iyo qaylada looga dileeyahay in dib loogu dhigo doorashada mudane meesha ka daa hadalkaas waxa weeyaan uu cad yahay habraaca qodobka 78 ee dastuurkan ku wada shaqeynaa marka wax loo gudbiyo guurtida sharcigu wuxuu baneynayaa inay wax ka bedeli karto waxna ku dari karto xeer wax lagu daray ma jiro halkan aan ka cadeynaya marka waxaan leeyahay hogaanka kulmiye been abuurka iyo hafarka ha ka daayeen gudoomiyaha wakiilada ee daacadda ah ee ninka degan ee xalaasha ee hogaamin kara Soomaaliland yaani bursh madow oo uu saxaysan yaani marinin waxa la wuxuu saxay ma jirto iyo wax uu khalad uu sameeyay toona inta waxaan ka baxayaa halka waxaan
kaloo aan leeyahay ummadda reer Somaliland waxaan uga darayaa baaq halkan shacabka Somaliland ee xorta ah xalaasha ah ee dimuqraadiyadda iyo runta jecel waxaan dhawaaq dheer ugu sheegayaa inaanay iibsan wargeyska Somaliland Today oo laga leeyahay madaxtooyada sababtoo ah waxa uu si bareer ah u bedelaa hadallada mas'uuliyiinta xalaasha ah ee xorta ah xukuumaddu waxay xidhxidhaa had iyo goor oo aragteen xabsiyada ku gurtaa hawlwadeennada runsheega ah ee saxaafadda ka shaqeeya hase yeeshee Somaliland Today hadallada ay qalloociso ee ay sida beenta cad ah u majara habaabiso ayaa lagu xidhaa oo uu ku xidhan yahay xoghayihii xanaanada xoolaha ee xisbiga wadani halkaa wariyaasha haddaan xadhigga wariyaasha sii wado 4 sannadood iyo 4 bilood ee kulmiye talada dalka hayay waxay si sharci darro ah oo aan waafaqsanayn xeerka saxaafadda xeer lambar 27/2004 xabsiga ugu taxaabeen 252 ama 52 wariye 252 reporters sanadkiiba celis ahaan waxay xukuumaddu xidhaa sanadkiiba 63 ama 63 wariye halkii sano wariyaasha xoriyadooda laga qaaday ee xukuumadda Siinaayo xabsiga dhigtay waxay 10 laab ama 15 laab ka badan yihiin marka la isu geeyo wariyaasha la xidhay wariyaashii ay udub xidhay 8 sanadood ee ay haysay talada waxa ka badan inta ay sanadkii qura xidho 15 goor ama 10 goor bay ka badan tahay xukuumadda Siinaayo tay xidho waxaanu cambaarayna anigu aan cambaaraynaya hadaan ay xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed oo xoog xariga wariyaasha xaq darrada ku xidhan waan cambaaraynaya waxaan cambaaraynaya Home Cable TV iyo Somsad xildhibaan waxaan leeyahay wariyaasha ka xidhan waxaan leeyahay xaqooda xorriyadoodii si degdeg ah oo bilaa shuruud ah loogu soo celiyo sababtoo ah anigu waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha bulshada ee u xil saaran xeerka saxaafadda haba yaraatee xeer saxaafadeed oo xidhaya ma jiro xeerka saxaafaddu waxa weeye xeer madani ah xeer criminal maaha saxaafadda looma adeegsan karo criminal lawska waxa loo adeegsan karaa xeerka saxaafadda ee anigu aan u ahay gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha bulshada waxa caadi ah oo asluubta saxaafadda ka mid ah inay qariyaan wajiyada dadka ay warka ka hesho source of news and information haddii ay ku mutaysanayaan xarig iyo wixii la mid ah labada wariye ama saddexda wariye horta labada wariye galbeedka waxa lagu haystaa maxaad u qariseen wajiyada dadka kabaha ku masaxay ee gubay calanka kulmiye xaq bay u leeyihiin waa international law to protect the identity of source of information inay aqoonsiga qofka qariso saxaafaddu waa wax caalami ah sababtoo haddii qofku ku mutaysanayo in la xidho la toojargareeyo lagu sameeyo handidaad loo cagajugleeyo xabsiga la geeyo ninka wariyii qofka uu duubay waa aragteen dadka baqaya waa aragteen marka TV-da daawanaysaan wajigooda waa waxa lagu qariyaa wax madow sababtoo ah qofkaas wuxuu leeyahay haddaad imika aan la arko oo halka wajigayga laga markiiba CID-da liigeynaya sidaa daraadeed wariyuhu wuu soo duubi karaa waanu qarin karaa qofka anigu garan maayo xeer qarqooskan meesha ay ka keentay xukuumaddu waa caalim arrinka qarinta aqoonsiga qofku waa arrin caalamka oo dhan lagaga dhaqmo in la qariyo aqoonsiga qofka warka siiya saxaafadda marka dadweynaha reer Somaliland isbedel bay doonayaan baarlamaanka Somaliland waxaan leeyahay markaan baarlamaanka leeyahay waxaan la hadlayaa guurtida iyo wakiiladaba waxaan leeyahay ha u dhuran dhurwaagii laftuu dhuuxay eersaday
waxaan leeyahay ha ku ciyaarina dab ha ku ciyaarina don't play with fire haddii shacabku kaco lama horjoogsan karo إذا الشعب أراد يوم الحياة فلا بد أن يستجيب القدر هذا شعب كرو لما رجع سكرو وحوي وأركيسان وحلي ميد محاود بي يكال سيسدو بوركينا فاسو واحد كده وأركيسان برلمان كي دب على الصورة إذا أو أيدونيا برلمان كو إني بدلان مدة يسوق أفر كورس وقبتي تطبيق 14 سنة ضد مدحونا بوركينا فاسو هي حكمك أي هذا دستور كانوا بدلنا سمر كلا لو دورت دد كوي غدودن way gubeen war waxaan idin leeyahay baarlamaanka Soomaaliland oo guurti iyo wakiilaba dadku meel xun bay ka maraysaa abal arrinka iska eego dab ha ku ciyaarina oo fariina ha ku keensanina dhibaato waddanka ka dhacda dadku ma ogola in maalin la kordhiyo doorashada one day dadku ma ogola in maalin qor la kordhiyo waxaan cambaaraynayaa حركة حقها حنانة حولها حبس حسب وطني حبس كسيد حق الرضا الله كنت حابي ومحبوس يا سداد وpolitical prisoner ما قررنا إنه ماله حكومته جيسي سمر كان سيد الله وإحنا نقول السياق دي كحني أنا أقول حلبان كيسي بعد تجي ماشي واللي يسوع عليه الدنيا ده قلت إنك وكيل كبرلمان كوا لقما قريه قفك حرن كم إذا constituencies أما دكان كلا صدرت أنا قا نكى وكيل كوا دكان كا وحسن كسر جيدو أيا تجيس يا ديدي وحنا يدي مدحتويد وحامر نقصص مال سرب يوكورنيا معناه وحويان مدحتويدا مال سر أمر لقيسي ماشوا ما تليها عيدا كبوليسكا ما وزير كريمها جودها ما مدحتويدا يي وزير كمدحتويدا قرن منه أنا كشغلة يدا حلبان سوى نكسب بيلاده وأنا من عسكر يجو أمر بالسي ويقول حلبان أنا كشغلة يدا ناقصن أنا كهنا جلافن وإحنا نقول عندنا لما تسكره ورنيك الدم معها وحويه وانن مسؤولة وحزب كترسن نكن أرجك حسمها ما قرحيه هذا البويدي هذا الكبير ركتي سومالي لاند توداي جرد ليلا أيه بدي شيء أو قلوا عشي هذا الكيسي هل كاسم كوهيا وكوهالي وحويه محكمة عدالة هالهور كانوا هذا الكيسي ما نشرينا واحد تري بو أيه سومالي لاند قرطي سومالا سليمان قال بندلية مورن سليمان قال بندلية مورن هذا الكيس هل كاسو كدومي الميدان واسع محكمة كان ده محكمة دي يا شرعي يا برلمان كي من لما وقلا waxa u tagay lawyer-kiisi laba lawyer baa u tagay ninka matalaya waa laga soo celiyay waxa la yiri marka kartaan war ninku miyuu qarxaya wuxuu meel ku xidhay waxaan anagu imika leeyahay meeshi orto meel uu ku xidhay anagu toos u garmayno sababtoo ah dana lama tusin waxaanu leenahay waa missing person waa qof la waayay sababtoo ah waa in la tuso eelkiisi qaraabadiisi waa loo diiday gooshii waa laga soo celiyay cuntadii waa loo diiday والحقيقة عدالة ما أساسي وحنا ويان ولا دوغي يلا تعرون بريتو رقم مسؤوليته حلك هيو بريتو حلك ولا كتك دونتان سومالي لأنه جوري مس وأنا جوجي سان وأنا الحساب تمي تونا وحلودي ذا لو يركيسي إنسان يشجعه الذي سبا وحنا عبارين حركيسة وحنا ست دقيقة حكومة السيناء وقعصنا إنه مسؤولك حكاياها الشادو منستركا أسو علسو حريتي سيدو كل خصاب بدن له هدان كهذا نبت جليدا نبت جليد وأرن غالية وحنا نبت جليدا وحيل عشرة ددوينها كل مية مركي أنا قوض بهين وحورن جري نمكن قوض وحي نقول ما ويليان نبت قلي واحد مدابات شبيه أما حي عابدان سنة بالله والنبض بيهون جري إمك يجو نبض دينا ما يلالي أنا واتنا إذا مدتك أرجع حقليه وصود ريان نبي محمد نحريسي جنا كل كيساته ينبت قلي وحو كنت عيسن جري
اللهم إني أسألك الأمن والإيمان نبت قلت يهو شعب يهو نبت قلت إذن كا إلى عليا أي لا شذا حكومة إذن كا كيني جني نكي كينا أيا سارة عدكينا يفرتينا كريدا حكومة نبت قلت الرئيس كا إلى عليا لحي لباتك الجمل كلا قارو فرت هذا يعدك هذا كبدل الحكومة صوبتها حكومته waxay dhabada saartay kaligees talasnimo iyo dhabadii dadweynaha waxa la kaligees talasnimada waxay xukuumaddu cagta saartay dhabadii kaligees talasnimada dictatorship waxa xukuumadda dalka haysta tusaale ugu filan kaligees taliyaashii dunida soo maray waa inay gartaan halkee ku dambeeyay siyaad barre yaa ka xoog badnaa xaguu ku dambeeyay من كيست حيلة مريم مبوط ساكو وكي زئيرة ماركوسكي فلبين قذافي زيد العابدين بن علي حسني مبارك جسسكي رومانيا انتاس ايات صالك وقفلا تتكلم عاقا جولين عبورين حرق ويكو ضرران ويكو سي ضرران وحمد لله حل حرق حل ماها حلت waxa li sheegay dhalinyaro loo daatay oo magaca ku hadla afka jidali ku hadla oo yiraahdo urur la yiraahdo jidali guriyoodii baa xalay loogu daataa leeyri wala gabagabeeyay wala tiraas gareeyay xabsiga ka buuxan baa igu maqaala anigu meesha maan joognay dadka aga jugleynta iyo digdigta iyo damdamta laga daayo intaas oo kaliya taliya soo tiriyana halkay ku dambeeyeen waxaan leeyahay bal idinku taariikhda waxba laga bartaayo idin kama xoog badneen ama 150 gaari soo iibso ama ciidanka OPU samee ama RRU samee إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر هذا الكيوان بديي ان waxaan ku soo gabagabeynaya naxariistii janno ee baa ka waraabiye abwaan Axmed Ismaaciil Diiriye Qaasin waxa uu yiri markiisa talada habar saareeya iyo sabiye loo dhiibay ayay seen cadaadiye nin ragi sibiq dhaqaaqeen gudoomiyaha gobolka Gabiiley inanka yar la yiraahdo Mustafa Shiine yiri Cabdiraxmaan Xoog iyo Cabdiraxmaan Ciraan u jawaabay anaga isku beela warada anagu beelnimo uma jawaabno xisbinimaan u jawaabnaa xisbiga udubana ninka madaxweynaha ka daayirayaal ka ahay madaxweynihii ka tagay dardaaranka dhaxalgalka dal iyo dad is haysta ayaan kaaga tagay ninkii bixi anigu xisbigaasan taageeray ilaa maalintii uu la aasaasay daayirayaal ka ahay isku gobolna kama aanan soo jeedin bariga Hargeysa waqooyi koonfurta Hargeysa sabab wanaag cadaadley oodweyne burco ceergaabo berbera kama soo jeedin wuxuu ka soo jeeday gobolka Awdal Mustafa Shiine wuxuu yiri labada mas'uul baan isku reernaayo oo jawaabaya waxaan leeyahay markiisa talada habar saareeya iyo sabiye loo dhiibay ayay seen cadaadiyo nin ragi sibiq dhaqaaqeen waxaan leeyahay ilaahay iyo cambaro madow kala warla reer Gabiiley wuxuu ula tagay hebel baan casuumaya heblaayaan casuumaya summer time kaalaya summer time baan tagaya war dadkan reer Gabiiley waa dad ka horeeya waxa weey waxa soo kale waa waxay ku diideen markii adiga oo kale iyo sabiyada noocaaga madaxda looga dhigay ayay dawladdiiba ka soo horjeesteen war xukuumadda hadaa wax garanaysan dad wax garanaya meelaha u dirto ninka ku hadlaya labada xildhibaan ee gaamuray ee siyaasiyiinta ee hogaamiyaasha xisbiya ayaan reernimo ugu jawaabaya ma ninkaas Ilaahay baa idinku dhaarshay wax maamuli kara oo wax u dhiibanaysan reer Gabiiley isaga idinku diray waxay diideen waxa weeyay Mustafa Shiine ka soo qabta meesho anaga noomana jawaabi karo cilmi iyo da iyo aqli iyo waayaranimo midna anaga nooguma jawaabi karo reernimadiisna ha haysto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh